jacaylku waa dareen kugu reeba raad qurux badan. Jacaylka dhabta ah wuxuu ku dareensiiyaa in noloshaada iyo farxadaada ka wanaagsan tahay sidii hore. Meesha uu jacayl ka jiro waxaa ka jirto nolol. Halkan waxaan kugu soo gudbin doonaa 15 oraahyo oo jacaylka laga yiri. Ku soo dhawaada muuqaalkeena maanta. Oraahda koowaad, qofka sida dhabta ah kuu jecel. Murugadaada waa u mug, maalinta xanuunkaaga waa u murugo, maalinta guuldaradaada waa u caro, maalinta maqnaashahaaga waa u cidlo, maalinta farxadaada waa u ciid, maalinta agjoogistaada waa u iftiin, maalinta guushaada waa u hadiyad, maalinta midowgiina waa u hanti. Oraahda labaad, dareenka ugu qaalisan ee uu qalbiga dareemo waa jacayl. Ma jiro wax ka xanuun badan oo aad dareemi lahayd marka aadan haysan ruuxdii aad u qaaday jacaylkaas. Ma jiro wax ka macaan ee aad dareemi karto markii aad haysato ruuxdii aad u qaaday jacaylkaas. Oraahda saddexaad, jacaylku waa luqadda qalbiyada iyo indhaha, waa macalinka nolosha, waa bilowga kalsoonida, waa hooyga farxadda iyo dareenka, waa geedka ubadka iyo daawada qalbiga. Oraahda afaraad, jacaylku guushiisa waa labo, xasuus joogto ah iyo xiise aan gurin. Oraahda shanaad, in qof si qoto dheer kuu jeclaado waxa ay ku siinaysaa awood, halka inaad qof si qoto dheer u jeclaato ay ku siinayso dhiiranaan. Oraahda lixaad, ma jiro wax keeni kara guriga lamaanaha isqabo ammaan dhab ah oo aan ka ahayn jacayl dhab ah. Oraahda toddobaad, wax ugu muhiimsan ee aabba awooda inuu u qabto ubadkiisa waa in uu jeclaado hooyadood. Oraahda sideedaad, suurtagal ma ahan in aad qof jeclaato iyo in aad aqli lahaato. Oraahda sagaalaad, jacaylka dhabta ah waa marka qof kale farxadiisa kala muhiimsan tahay farxadaada. Oraahda tobanaad, dadka sida dhabta ah isku jecel si sahlan kuma kala haraan. Haddii ay jirto 100 sababood oo ay ku kala tagi karaan, waxay helaan hal sabab ee ay ku wada joogi karaan. Oraahda 11aad, qofka sida dhabta ah kuu jecel wuxuu ka hor istaagaa in aad samayso dembi. Qofka aan sida rasmiga ah kuu jecleen wuxuu kugu dhiirigeliyaa xumaan iyo inaad dembi samayso. Oraahda 12aad, jacaylka waa ciidanka kaliya awooda cadow inuu u bedelo saaxiib. Oraahda 13aad, jacaylka waa sida cinjir oo ay laba gacmood kala jiideen, haddii midkood sii daayo kan kale ayuu xanuujiyaa. Oraahda 14aad, jacaylka marnaba xanuun ma lahan ee waxaa u yeela xanuun beenta, fududaysiga iyo ku ciyaarista qofka kale dareenkiisa. Oraahda ugu dambaysa, oraahda 15aad, wax walba waxaa bedela waqtiga, sida sanadka, wajiyada, muuqaalada, saaxiibada, marka laga reebo hal shay kaas oo ah jacaylka dhabta ah. Ugu dambayn, haddii aad ka heshay muuqaalkan la wadaag lamaanahaga oo share u dheh, hana ilaamin TikTok inaa follow soo dhahdo. Mahadsanid.